waxaa la iskugu yimid waxay tahay waa farxad. waxaan rajaynayaa in kalimaadka meesha laga jeeshay laga wada faa'iideystay oo xikmada ku salaysanaa ha ahaadana ardada mas'uuliyiinta jaamacadaha ka socday waalidiinta in ayna wada anfacdaan rajaynaa. waxaan isku nimidaa intaas ay tahay maadaama ay farxad tahay in kalimaadkaasi meesha laga jeedaan dhammaanteena aan ka wada faa'iideysano aanan qaadano talooyinkaas ayaan looga baahan yahay gaar ahaan ardada. runtii iyaana ku dheeraan wixii uun la sheegi lahaa un baana waxyaalaha ka mid ah aan dulmarayaa iyo talooyin. mar kale waxaan u mahadcelinayaa alla subxaanahu wa tacaala. waxaan u mahadcelinayaa mu'asasada imaam maalik oo runtii ka mid ah bahda waxbarashada ka jirta soomaaliya, isku dayda una taagan mar weliba in arday soomaaliyeed ay inta karaankeeda ay wax barto. marka waxaan ka mid nahay mu'asasaadkaasi tacliimiga ka jira waddanka. waxaana kalley aan aaminsanahay in badan oo bulshadeena soomaaliyeed ah inaan wax tarnay aan ku dadaalayno inta karaankeena. waxaan maanta soo baxay soo qalanjibiyey runtii waxay yimaadeen meel wanaagsan oo lagu farxo ayay yimaadeen. waxayna ku yimaadeen dhabar adeeg dadaal badan ay sameeyeen mu'asasada imaam maalik, macallimiinta, waalidka dhammaan oo wada socda. runtii hawshan oo kale haddaysan noqon mid la isu kaashto haddaysan noqon runtii mara fiican tamcan ma yeelanayso. marka way wada mahadsan yihiin dhammaantooda. si gaar ahaan ardadii ku soo dadaashay ka soo bilowday marxalad laga yaabo qaarkooda koowaad inay ka soo bilaabeen oo qaar badankooda aan xasuusto inay ka soo bilaabeen labaad, maanta inay dhammeeyaan way ku mahadsan yihiin. sabarka ay sabreen, waalidiintooda ay dhegaysteen, maamulkooda iyo macallimiintoodana kulley intaas la soo shaqeeyeen. kulley maanta waxay joogaan meel aan ku wada farxono haddaan nahay macallimiin, maamul iyo waalid. waxaan rajaynayaa talooyinkii idin laydin siiyey inaad qaadataan. runtii qof bani aadamka waxaa loo baahan yahay inuu fikiro. waxaa la sheegaya idil maanta waxay ku jeedaan ardadaas, idinka ay ku jeedaan. marka waxaan rajaynayaa in aysan noqon wax layska sheego lagu khasaaray inaysan noqon oo aad ka faa'iidaystaan rajaynayaa. taasaan dhammaanteed waxay noo noqonaysaa wax wanaagsan ay noo noqonaysaa haddaan nahay maamulkii, macallimiintii iyo waalidkii. runtii waalidkaaga laga yaabo qarashkaaga intaasana soo bixinayay waxuu higsanayay meel maalin un ardaygiisas ama meel wanaagsan inuu waxbarashada ka gaaro. marka insha allah badankiina waxaan rajaynayaa intiina badan sidaa aaminsannahay in aad ku dadaasheen waxbarashadiina insha allahu ay waalidkiina tari doonto, ummadda soomaaliyeed ay wax tari doonto ayaan rajaynayaa. waxaan u mahadcelinayaa runtii macallimiinta. haddaysan ahayn macallimiinta hawshaasi dabcan ma qabsoomi lahayn. waa udub dhaxaadka ay yihiin macallimiinta waxbarista. runtii maamulka waa hagaajiye, waa takhtiid, toosin, waa tawjiihin. laakiin qofka muxarriga ah, facaalka ah waa macallinka waaye. marka macallimiintana way mahadsan yihiin. ilaahay ajar ha inka siiyo dadaalka aad samayseen. ayagana waa ay mahadsan yihiin. waxaa kale dabcan u mahadcelinayaa qabanqaabiyaasha xafladdan quruxda badan. runtii aan oran kala reebaynin. aad u jeedeen cabdullaahi daahir, maxamed cumar warsame, cabdilatiif maxamed ibraahim, ustaad cabdullaahi xuseen warsame oo ka mid ah xubnaha sare ee mu'asasada imaam maalik ahna maamulaha iskuulka garas valley ee teletisho. dhammaantooda way mahadsan yihiin runtii qaabka ay ugu soo shaqeeyeen quruxda badan. waxaan u mahadcelinayaa ustaad axmed abshir geedi oo runtii ah qof isku daya in bulshadan uu wax ka bedelo, hadday noqoto xagga tacliinta, hadday noqoto xagga muxuu ahaa caafimaadka dhinac weliba mar weliba taladiisa runtii waxbarashada bahda waxbarashada la kaashta aad u dadaala. waa u mahadsan yahay. waxaan hambali u dirayaa mar kale ardadeenna maanta qalanjibisay. runtii dabcan aan sheegnay marxaladaha ay kala duwan ay soo mareen, duruufaha kala duwan ay soo mareen ayaan hambali u diraynaa haddaan nahay mu'asasada imaam maalik si guud ahaan. runtii maanta waxaa naga maqan guddoomiyaha mu'asasada imaam maalik cabdiraxmaan sheekh yuusuf dabcan oo maanta u suuragelin inuu xaadiro goobjoog uu ka ahaado xafladdaani. arrimo dabcan khaasa dibadda u aaday. marka
runtii hambalyadaasi marka waxaan la wadaagayaa dhammaan ardaydeena qalanjibisay iyo waalidiinteenna waxaan idinka rajaynayaa in aad dabcan marxaladaha kale u gudbi doontaanna insha allahu tacaala aad wax wanaagsan keeni doontaan insha allahu maalmaha ka mid ahna sida ardada hadda meesha ka hadashay ayagoo soo dhameeyey muxuu ahay qaarkooda jaamacadihii soo dhameeyey kuwa qaarkooda wado oo meelo wanaagsan ka gaaray mise ayagoo masar soo diyaariyey in xafladahan kale aan ku casuumi doono